ورحمة الله وبركاته وأن سلام خيرتي دي شرفت له سيديتين في عنتهين ميلو البوجوكتان عفي عافماد أن إذن رجينا ما شاء الله وأن إذن حيسي ولي هرقبك يا إهايو حبيبة إهيسو محي إهي تدونتو حامودا إن يعني يقور عنتها يوكله ما أنتو حنو وذا قصة عجيب أنو ولي مقلين إن شاء الله تعالى أبايدنا وحيتري هدي إلهي إدن هرتو هدا جنالكي ku cusub tahay soo dhawo subscribe dheh insha Allah gambaleelka taabo suusan ku dhaafin video kasta oo soo galino maxad nagu cusub tahay nagu soo dhaweynina khiyaar badan aad dib ka imaatay waa in soo dhaweynaa insha Allah ta'ala aad ugu mahadsantihiin talooyinkiina fikradihiina iyo ra'yiyaashiina waxaan kala rabaa fariin yar oo gaaban inaan u diro gabdhaha ii soo dirsaday iyo wiilasha ila talada ii soo dhiibtay wuu buuxsamay WhatsApp-kaygu waa full also Facebook-kaygu sidoo kaleeto waa full maxay ahayd hal mar ma soo wada gudbin karo qiso yaab leh oo cajiib ah maanta idin wadaa soo abaayo waxay idinkaga baahan tahay talo iyo duco umay baahna in maxay ahayd la habaaro mana ay u baahna in maxay ahayd ii sheegay yacnihi advice xun iyo waxyaabo xun laga sheego soo hadii insha Allah ta'ala aad comment qurux badan usoo qori kartid walaasha waa wax wanaagsan way ku farxi doontaa oo maxay ahayd aad u ducayn doontid hadii kale tana oo xumaan usoo qoraysidna xumaantaada iska hayso insha Allah ta'ala because qofka bini aadanka wuu khaldoma khaladkuna wuu dhacaa soo shaydaan baa jira qisada maanta aan noo wada waxay ku saabsan tahay gabar ii soo qortay anigoo nin leh ayaa nin kale uur u yeeshay soo ila jooga waliba marka insha Allah qisadu saana ku bilaabmaysaa hadii Ilaahay idmo maxay ahayd qorraxna indhahayga haysa iga raali noqda waxay tiri assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa idin salaamay khiyaarta ku xiran axlaam lifestyle waxay tiri walaalo magacayga ma doonayo in halkan laga maqlo soo waxay tiri mana rabo sidoo kale wadanka aan joogo inaad sheegto laakiin waxaan rabaa qisadan igu dhacday ee murugada leh inaan idin la wadaago waxaan doonaa inaan helo talo ama advice iyo ducooyin sidoo kale inaan helo waxay tiri waxa dhacday anigoo wadankii jooga ayaan waxaan isguursanay wiil aan xoog isku jeclayn waxa dhacday bay tiri laba cunug inaan isku dhalnay si fiican ayaa la ii arkaa han rajeynaa insha Allah qorraxa indhaha iga hayso so I'm sorry waxay tiri marka walaashay waxa dhacday bay tiri wiil aan isjeclaynayeen isguursanay laba cunug ayaan u dhalay kadibna maxay ahayd waxaan soo aaday wadamada qurbaha ee reer galbeedka wadan ka mid ah waxa dhacday bay tiri wiilkii markii uu iga soo tagay wuxuu iga maqnaa 4 sano iyo bar muddo gaaraysa markii cunugii maxay ahayd ugu yaraa markaas dhowrka bilood jiray uu ka tagay 5 sano buuxiyay ayuu dib noogu yimid waxa dhacday bay tiri wuxuu yiri waxaan doonayaa inaan idin kaxeeyo wuxuuna geeyay wadamada Afrika wadan ka mid ah ee lagu dacwoodo kadibna waxa dhacday in wadankii uu nageeyay uu yiraahdo dacwada ma ka suurtagelayso hadii aad tahay hooyo uur leh okay waxay tiri waxaan u yeeshay uur saddexaad baan u yeeshay marka waxa la igu yiri way tiri dacwada ma suurtagelayso adigoo uur leh waa inaad dhasho waxa dhacday bay tiri wuxuu igu yiri xaajiga halkan jooga inta aad ka dhalayso kadib ayaan dacwada furan doonaa waxa dhacday bay tiri in uu xaajigii ku soo noqday meeshii uu hore u joogi jiray annakana meesheeni uu nagu soo biili jiray markaas waxa dhacday bay tiri in cunugii alxamdulilaahi rabbil caalamiin uu nabad ku dhasho aniga iyo xaajigaygii isku faraxsan oon isla xiriirno ilmahaygana aan meesha ku haysto waxa dhacday bay tiri markaan saa u dhalay wuxuu yiri haye dacwadii baan noo bilaabayaa waayahay baan ku iri bay tiri laakiin waxaan doonayaa in hooyaday oo xanuunsan aan u tago soo fiiriyo waxaan rabaa inaad ii timaado ood ilmaha iga reebto because ma rabo inaan wado kaxeeyo wuxuu igu yiri bay tiri waayahay anna shaqadan ka nasanayaa 3 bilood waan idinla joogi karaa wuu noo yimid muddo markuu nala joogay bil gaaraysa ayaa waxay tiri anoon is ogeyn ayaan uur yeeshay uurkii afaraad waxaan u noqday bay tiri wadankii waxaan u imid hooyaday oon isri ka soo ducayso si arrimahaaga Ilaahay uu kugu fududeeyo kadibna waxa dhacday inay maqashaan rajeynaa insha Allah
kadibna waxaa dhacday hooyaday markaan u imid ii soo ducaysay waxaan la joogay muddo 2 isbuuc ah waxaan ku soo noqday meeshii aan ka tagay ilmahaygii iyo odaygaygu wuxuu yiri wili waqti baan noo haray maadaama aad hooyo waqti yar la soo joogtay bil iyo xoogaa kale waan sii joogi karaa marka waxay tiri anu isma ogeyn waan xoog baan u xanuunsanaa babyga aan ku dhalay wadankaas aan joogay ee Afrikana aad buu u yaraa labada kaleeto waa labo waaweyn midna wuxuu jiraa 7 sano midna wuxuu jiraa 5 sano 5 sano 5 sano jiraa bay tiri marka waxa dhacday iga raali noqdo insha Allah waan akhrinaa waxa dhacday bay tiri walaashay alxamdulillah saddexdeedii baby ayakoo ii joogaan ana hooyaday aan ka soo noqday ayaa waxay tiri aad u xanuunsaday matag iyo madax wareer fara badan kadibna waan isa soo baaray waxaan tagay dhakhtarkii waxa dhacday bay tiri in la igu yiraahdo uur baad leedahay kadibna dacwadii ay halka ku hakato mar kale because waxa la marayaa waxay tiri waa jeekin marka hooyadu haday uur leedahayna waqtigaas ma aysan suurto galaynin in ay baxdo ma aysan suurto galaynin marka waxay tiri waraaqihii caafimaadka markii la ii diray ayaa waxa la ogaaday inaan uur leeyahay haddana mar labaad dacwadeedii ayaa dib u dhacday xaajigaygii waxay tiri wuxuu ku noqday wadankiisii uu ka yimid ayuu ku noqday alxamdulillah waan dhalay babyga afaraad markaan dhalay ayaa waxaan ku iri xaajiyo waan isa soo xiray wuxuu igu yiri waayahay isa soo xir xaajiyo aniguna idinma imaanayo ilaa aad idinka arrimihiinu idinkaga dhamaadaan waxa dhacday bay tiri walaashay kadib waxa dhacday in xaajigii dacwadii iyo wixii uu noo waday oo dhan aan ku guuleysano meeshiina ay nagu gaarto inaan ku noolaano 2 sano iyo 4 bilood ayaan dib u joognay yacnihii xaajigu intuu noo wadwaday dacwadii iyo wixii iyo baybigii kale uurkiisa ayadoo leh iyo kan labaad iyo adi 2 sano iyo bar bay nagu qaadatay intaan meesha joognay kadib waxa dhacday bay tiri walaashay markii aan ka soo dhamaanay safaaradihii iyo meelihii dacwada laga wada xareynayay ayaa waxa dhacday bay tiri inuu xaajigii yiraahdo waan ku faraxsanahay in arrimihii idin soo dhamaadeen tigidka ayaan goosanaynaa hadda waxaa noo gabagaboobay bay tiri tigidkeennii iyo arrimaheennii kadibna waan soo duulnay oo alxamdulillah ilaahay wuxuu igu keenay samo aniga iyo 4 caruur ahaa okay qisadu waa cajiib weeyaan insha Allah taala waxay tiri marka waxa dhacday in markii xaajigu uu na keenay oo wadankii aan cagaha soo dhiganay waxaan rajeynayay in aan galo barwaaqo iyo nololtii hore ka farxad badan oo ka jacayl badan laakiin waxa dhacday in ay suurto gali weydo arrintaas oo bilcagsigeedii aan meesha ugu imin okay xaajigaygu waxay tiri waa qiso cajiib ah xaqiiqatan qofkii dhageysta waxay u baahan tahay walaashu advice ama talo fiican in la siiyo insha Allah taala waxayna ku saabsan tahay gabadhan iyadoo la qabo oo ninkeedii uu la joogo ayay nin kale uur u yeelatay waxa dhacday bay tiri wixii aan filayay iyo wajigii naxariista badnaa galgacalka iyo farxaddu ay ku dheehnayd waxaan ka waayay xaajigaygii markaan imid qurbaha oo waxaanu imid nin neerfoosa ah xanaaqsan 24/7 shaqaynayo oo dhahayo wili waxaan ka kabsan la'ahay keenitaankii aan idin keenay wadankan qarashkii idinku baxay waa qarash aan ka soo kaban la'ahay oona ka soo kaban karin muddo 5 sano ah waxaan ku khasbanahay in aan shaqeeyo 12 saacadood halka markii hore aan shaqeynayay 8 saacadood arrinta hadda dhabka doontaa marka okay waxa dhacday markii
ay gabadhii tiri waayahay waan kugu raacsanahay in aad shaqayso ee noo soo shaqay xaaji annakii waxay tiri markii saana loo keenay isla markiiba waxaana la geeyey hotel kadibna waxaana la geeyey guri ay dowladuna siisay oo na diiwaan gelisay gurigii markiina la geeyey xaajigu wuxuu yiri ma doonayo in aan isku meel degno intii aan ka gudayo lacagtii aan idinku keenay laakiin waan idin imaanayaa oo waan idin adeegayaa meesha aan ka shaqayn jiray 5 beri waxaan shaqaynayaa 6 beri waxaan nasanayaa axadda oo kaliya waayahay xaajigii waxay tiri marka waxa dhacday arrintii sidii u ahayd anigoo xaajigayga ku faraxsan oo haddana la murugaysan yacnihii qarashkii iyo wixii uu galay oo dhan iyo hawshan uu 24/7 ku mashquulsan yahay ayaan maalin maalmaha ka mid ah waxaan ku iri xaajiyo naso isdaji maxay ahayto adduunyo orod laguma gaaro sidii aanu imid ilaa hadda ma aanu noqonin qolwadaag wax kale lagu tilmaamaan ma garanayo qolwadaag maxaa la dhahaa tulo يعني maxaan kale kugu sheegay anoo fahansanahay sariir wadaag meel dhaha saasoo kale ka soo qaat marka waxay tiri ma aanu noqonin qol wadaag soo sababtaas darteed ayaa waxay tiri waxaan rabaa in shaqadan faraha badan aad joojiso waxana hadii dawladdu ogashahay aad tartiib u bixiso eedan isku murugeynin hargaba ay haysanka dhan uu xiran yahay insha Allah codkiiguna soo gaaray rajayna waxay tiri marka waxa dhacday in hadii aan dhihi lahaa xaaji shaqadaada sii wado uu farxi lahaa laakiin markaan ku iri muddadaas aan joognay guri wadaag ama qol wadaag ama sariir wadaag ma aanan noqonin waqti badan ayaan joognaa waad noo soo adeegtaa waad ku mahadsan tahay laakiin aniga waxaan rabaa in aan helo xaajigii aan Afrika ku aqaanay dabcan gabadho gabar walba kulli xaq u leedahay inay hesho wadaad fiican yani ma sha Allah ma garanayo laakiin qof walba waxba taabta marka xaq way kulli u leedahay inay hesho qol wadaag miya waxsaasa okay waxay tiri marka waxa dhacday xaajigii inuu arrintii aad uga carooday uu yiri ma waxaad ku haminaysaa inaad hesho xaajigii Afrika oo kale inaad hesho ayaad ku haminaysaa waxaan rabaa inaan helo xaajigii hore ee farxadda iyo qolka nabadda iyo meel kasta ku wanaagsanaa marka wuxuu yiri arrintaas waxay ka tahay habeenkii xalay ahaayo tagay anoonan gudin lacagta aan idinku keenay waxay tiri wuu cadaystay aad ayaan uga xumaaday qofkan markuu teleefanka igala hadlaayo ama Afrika iigu imaanayo saas muusan ahaan jirin laakiin waxaan la yaabay isbedelkan xoogale ee odaygayga ku yimid muddo ayaa ka soo wareegtay dabadeedna waxa uu yiri xaajiyoy wili waxaad rajaynaysaa ama jeceshahay inaad hesho inaan noqdo ninkii hore laakiin ma suurtagelayso oo 6 beri oo kasta waan shaqeeyaa 12 saacadood ayay shaqadaydu tahay marna habeenkii marna maalintii marka sidaas darteed maadaama aanan waqti idin haynin ha iga xumaanin adiga iyo ilmaha laakiin adeegii iyo wixii aad rabteen oo dhan waan idin samayn doonaa waxa dhacday in ninkii uu wajigii
igu qaabilay marka aan ku iri waxaan rabaa inaan gogol wadaag noqono weji ka xun ayuu la soo baxay kama helo naagnimo yacni kama helo bay tiri ninnimo kama helo naxariis kama helo hadal wanaagsan wuxuu iga soo qaaday sida reerka dariska oo kale yacni hidde qof aan waxba isku kiingelin oo kale oo yacni guri kale iyo kasoo kacaya nolol kale camal wuu igu noqday bay tiri anna waxaan u baahanahay inaan ninkayga helo intaa waxaan ku jiray bay tiri muddo 3 sano ah ayaan ku jiray laakiin sharcigiina waan helnay gurigiina alxamdulillaah weynaa waan deganahay waxa dhacday bay tiri in meelihii luuqadda laga baranayay ilmahayga la ii geeyo iskuulaadkii iyo xanaanooyinkii laakiin aniga habeen iyo maalin waxay ii tahay problem aan sariirta la dul jiifo ninkaygii oon ka heli waayay ninnimo yacni waa wax aad looga xumaado waaye oo qofka bini aadanka ee maaragtay maskaxdiisa iyo qofnimadiisa iyo shakhsi ahaantiisa intaba dhaawici karta xaqiiqatan waxa dhacday bay tiri in markii problemku uu iga bataba aan isku madadaalin jiray aaladahan jira ee sida facebooka oo kale ayaan markasta waxaan ka dhex raadin jiray qof aan la sheekaysto si xaalkaygu uu u nafiso ama aan u ilaawo waxyaabaha aan tabanayo oo dhan maxaa ka tirahdeen qisadu way dheer tahay aad iyo aad horta waxyaabo badan waxaa jira lala yaabo xaqiiqatan dumarka markaas u fiirisana waxay moodaa in oo maaragtay yacnihii ay dhibaato miyaa culays miyaa xaaladooda si kala miyaa yacni sometimes waxaa is leedahay hooyooyin badan active ahaynaa jiro marka dee haddii buu qofka ku furan yahay ama problem uu haysto ama uu shaqaynayo way u dulqaadan kartaa laakiin qofka inuu saas asoo la joogo waddankii oo magaaladii la joogo oo la yacni u shaqaynayo oo markasta u imaanayo haddana inuu xaaskiisa saas kula dhaqmo kulley wax fiican ma ahan wax qurux badanna ma ahan dhuunta ay xiran insha allah ii dulqaata haddii ilaahay idmo xataa barar ba igu jira aniga dhan cafishan dareemaa hargabka waaye insha allah marka waxay tiri waxaan maalmaha ka mid ah ka bartay aaladda baltog ayaan waxaan ka bartay bay tiri wiil aan isku magaalo joogno markaasaan sheekaysanay wiilkii waxa dhacday inuu igu yiraahdo ma lagu qabaa waxaan ku iri bay tiri haa waa la i qabaa laakiin xaajigaygu ma ahan qof aan ka helo ninnimo aniga abaa iga raali noqoyaa yacni lama yaabin waan ka naxay calashaan hadalka saan usoo tuftay waan ka naxay abaayada daawadayaashay ka mid tahay insha allah way dhegeysanaysaa qisadeeda waxay tiri waxaa dhacday in aan baaltooga ka bartay wiilkaas uu i weydiiyey miyaa lagu qabaa waxaan ku iri haa laakiin ninkayga kama helo ninnimo asaguna ma ahayn qof ku xiran xagga rabbi wiilkan aan la sheekaysanayo waxaa dhacday bay tiri muddo markuu ciilay ninkaygii dhibaatooyinka uu isoo mariyey oo dhan ayaan uga sheekeeyey iyo dhaawacyada uu u geystay maskaxdeyda haye waa la yaab wiilkii waxay tiri aad ayuu ii soo dhaweystay dadka kale oo dhan ayuu iga soo dhaweystay waxaa dhacday in wiilkii uu qalbiga ii dejiyo
markasta uu ila soo hadlo idhaho noloshan maanta aad ku jirtid waad ka bixi doontaa anigu ma lihi xaas laakiin waan jeclahay in aan samaysto saaxiib agteyda ku qaali ah wiilkii waxaan isku baranay saaxiibtinimo ay ku dheehan tahay walaaltinimo laakiin asagu waa qof mar walba danaynaya in uu ila kulmo wuxuu igu dhahaa adigoo sidan u qurux badan miyaad xaajigaaga ka weyday xaajinimo ama ninnimo wuxuu igu dhahaa mar walba arrintan waxbaa kalifay inuu xaajigu sidaa u dhaqmo wax macquul ah ma ahan muddo 3 sano iyo bar ah 3 sano iyo bar way badan tahay samaha at least waxaa wanaagsanaan lahayd inaad 2 wadan ku kala noolaataan ayuu wiilkii igu yiraahdaa laakiin haddana wuu i ballamiyaa wuxuu igeeyaa aniga iyo ilmaha restaurantiyo qaali ah ayuu casho naga soo siiyaa waxay tiri aniguna qalbigayga qofkan already waxaan dareemayaa muddada intaa la eg maadaama uu naxariis jacayl iyo farxad uu i tusinayo in qalbigayguba qofkan uu la wareegay oo niyadaydu ay ka baxday ninkii hore iyo dhibtiisii waxa dhacday bay tiri asagu wili ima dhihin waan ku jeclahay aniguna ma dhihin waan ku jeclahay laakiin sheekada iyo warka aan isweydaarsanayno iyo naxariista aan ka arko waxay ila dhigantaa sidii qof aan jeclahay oo kale muddo ayaa ka soo wareegtay 6 bilood ah sidaas ayay ku buuxsantay 4 sano wiilkan waxaan isnaqaanaa 6 bilood 6 bilood anna waxaan ka mashquulay ninkii iyo howlihiisii aan biisiga ku ahaa waa qiso cajiib ah waxa dhacday bay tiri in okay qisadu way dheer tahay waan ku xijin doonaa isla videogan baan ku xijin doonaa maxay ahayd axlaam lifestyle channelkayga insha Allah kala soco inta soo dhameystiraya haddii ilaahay idma aad bay u dheer tahay inta waan akhriyay waan ku soo celceliyay soo hadda waxay noo maraysaa insha Allah wiilka inay 6 bilood ay is yaqaanaan marka waan soo akhrin doonaa qaybta labaad la soco haddii ilaahay idmo walaashin waxay rabtaa duco iyo advice iyo talo ku filan soo maxay ahayd soo dhawaada meel walbo joogtaan dhammaantiin qaybtan waa qayb xasaasi ah waaye waa qayb bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay nagu shartiray waaye soo maxay ahayd insha Allah walaashin fariinta commentiga ila talida waxa dhan dhac meesha ugu soo qoran insha Allah hadda nagu cusub tahay channelkayga ku soo dhawo like ta iyo share ta ha ka ilaawin